waxaana wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada wararka caalamka oo aad kala socotaan qaranka TV. fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe inoo saar, asxaabtaadana la wadaag wararka iyo barnaamijyada kala duwan ee xasaasiga ah ee sida joogtada ah aan kuugu soo gudbino. qaranka TV alaaba waxa uu kusoo gudbinayaa dhacdooyinka xaqiiqda ah ee ka jira gudaha qarankaaga, iyadoona aan meesha ka saarayno wararka been abuurka ah ee lagu baahinayo guud ahaanba warbaahinta. qodobada aan idiin soo gudbin doono ayaa waxaa ka mid ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxa ay gacanta ku dhigeen deegaano muhiim ah oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose, iyadoona aynu idiin soo gudbin doono qaabka ay ugu soo gashay in deegaanadaasi ay gacanta ku dhigaan. Xaliimo Ismaaciil Xaliimo Yarey, gudoomiyaha guddiga doorashada qaranka Soomaaliyeed, waxa ay sheegtay hal arrin inay hortaagan tahay inay bilaabaan ololaha doorashada ee ku aadan in la diiwaan geliyo muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ka qayb qaadanaysa doorashada. sidoo kale waxaan idiin soo gudbinaynaa warbixin dheer oo ku saabsan diiwaangelinta casriga ah ee loo sameynayo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo waxa xilligan ee kusoo beegay in ay dowladda federaalka Soomaaliya tayeyso ciidamada. waxaana idin haynaa warbixin kale oo ku saabsan Xasan Sheekh waxa uu ka warbixiyay madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya kulankii ay la yeesheen madaxweyne Farmaajo iyo waxyaabaha la isku afgartay. u diyaar garooba qodobadaas iyo qodobo kale aynu ku horeyne. wararka ka imaanaya qaybo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose ayaa waxa ay sheegayaan in dagaal ay kula wareegeen ciidanka qaranka Soomaaliyeed deegaan ka tirsan gobolka Jubbada Hoose. ciidan ka tirsan militariga Soomaaliya iyo kuwa Jubbaland oo isku dhinac ah iyo Al-Shabaab ayaa waxa uu dagaal ku dhex maray deegaano ka tirsan gobolka Jubbada Hoose. deegaanada ay ciidamada la wareegeen ayaa waxaa ka mid ah Kaam Jaroon iyo Buule Xaaji oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose, sida ay dad goobjoogayaal ah xaqiijiyeen. ciidanka Jubbaland waxay sheegeen in fariisimo ay ka sameysteen deegaanada ay ka baxeen ururka Al-Shabaab, isla markaana hadda ay ka wadaan howlgallo. ciidamada xoogga iyo kuwa Jubbaland ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxa ay howlgallo ka wadeen deegaano hor leh oo ku yaala gobolka Jubbada Hoose. saraakiil ka tirsan taliska qaybta 43aad ee ururka 5aad ee Commandos-ka Danab oo howlgalka qayb ka qaadanayay ayaa waxa uu sheegay in ciidamadu ay weli deegaanadaas ku sugan yihiin iyaga oo aan la kulmin iska caabin xoogan oo dhinaca Al-Shabaab uga timid. waxa uu sidoo kale sheegay in howlgalka uu noqon doono mid sii socda ilaa iyo deegaanada kale ee jubbooyinka ay ku sugan yihiin laga saaro ururka Al-Shabaab. ma jiro wax war ah oo kasoo baxay dhinaca ururka Al-Shabaab oo deegaanadaasi in muddo ah gacanta ku hayay, iyadoona aan idiin soo gudbin doono wax alaalay wixii kusoo kordhaa guud ahaanba wararkaasi. Soomaaliya qarankeeda waxa uu u diyaar garoobayaa in lagu qabto doorasho sanad kadib, iyadoona doorashadaasi dad badan ay wax iska weydiinayaan nooca ay noqon karto. laakiin gudoomiyaha guddiga doorashada qaranka Soomaaliyeed Xaliimo Yarey ayaa waxa ay shaaca ka qaaday in hal caqabad oo kaliya ay hortaagan tahay in la bilaabo diiwaangelinta muwaadiniinta Soomaaliyeed ee doorashada ka qaybgalaysa. gudoomiyaha guddiga doorashada Soomaaliya Xaliimo Ismaaciil Ibraahim Xaliimo Yarey ayaa ku adkeysatay in Soomaaliya ay ka dhici karto doorasho qof iyo cod ah. gudoomiyaha oo wareysi siisay laanta afka Soomaaliga ee BBC-da ayaa sheegtay in waxa kaliya ee hadda ka hortaagan in ay gudaha u galaan hanaanka ay ku dhaceyso doorashada qof iyo cod ah ay tahay in baarlamaanka uu meel mariyo sharciga doorashada oo haatan horyaala. waxay sheegtay in haddii sidaasi ay dhacdo ay guddiga diyaar u yihiin in bisha Maarso ee sanadka cusub bilaabaan diiwaangelinta codbixiyaasha doorashada qof iyo cod ah. dastuurka ku meel gaarka ah waxaa jira in markaasi uu ogol yahay in doorasho qof iyo cod ah dalka ay ka dhacday tiri, laakiin waxaynu culeyska ugu badan saari doonaa in haddii baarlamaanka ay ansixiyaan in bisha Maarso aan bilowno diiwaangelinta muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ka qaybgalaysa doorashada. Somaliland iyo deegaanada Al-Shabaab ay haystaan ayaa sidoo kale sharcigaasi waxa uu qeexayaa sida doorasho suuragal ay u noqon karto in looga qaban karo. siyaasiyiinta xisbiyada mucaaradka iyo madaxda maamul goboleedyada ayaa ku cadaadinaya dowladda inay shaaciso nooca doorashada ee dalka ka dhaceysa, isla markaana soo bandhigto qorshaha lagu hirgelinayo. inkastoo wadahadallo ay bilowdeen mucaaradka iyo muxaafidka, iyadoona madaxda qaranka Soomaaliyeed ay u istaageen sidii ay mucaaradka u fahansiin lahaayeen nooca doorasho ee dalka ka dhaceysa.
waagaag daawadayaal markana haddii aynu eegno dowladda federaalka ah ee Soomaaliya waxa ay bilowday tan iyo markii hoggaanka ay u qabteen madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Khayre in dib loo tayeeyo ciidanka xoogga dalka iyadoona ciidankaasi ay yihiin kuwa haatan lala socdo tiradooda tayadooda iyo meelaha ay ka howlgalaan warbixin ka koobneed in ka badan 160 bog oo ay diyaariyeen khubaro qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha cunaqabateynta hubka saaran Soomaaliya iyo Eritrea ayaa looga hadlay diiwaangelinta ciidamada Soomaaliya waxaa arinta lagu tilmaamay tallaabo muujinaysa in ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ay AMISOM kala wareegi karaan howlaha nabadgelyada dalka marka la gaaro 2021 qaybta nabadgelyada haddii aan eegno sida ay uga hadleen qaramada midoobay sida lagu qoray warbixin loo gudbiyay golaha amniga oo ay diyaariyeen khubarada qaabilsan cunaqabateynta hubka saaran Soomaaliya iyo Eritrea waxaa lagu eegay hirgelinta qorshaha kumeel gaarka Soomaaliya ee la qaatay Abriil 2018 kaasoo ku talagalku yahay in mas'uuliyadda nabadgelyada lagala wareego AMISOM oo lagu wareejiyo ciidamada nabadgelyada Soomaaliya marka la gaaro 2021 intaas oo ku beegmi doonto bixitaanka AMISOM waxaa intaa dheer in qiimeynta howlgalka gobolka ee AMISOM ee la sameeyay muddadii u dhaxaysay Maaj 2018 ilaa January 2019 in lagu ogaaday inay jireen 20,000 oo askarta dowlad goboleedyada ah oo aan hoos tagin taliska dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo dhimashadooda iyagu la shaaciyay isla markaana la sheegay in siyaabo kala duwan ay al-shabaab u dileen tani markii ay dagaalada bilaabeen warbixintii ay AMISOM dabcan loo gudbiyay iyaduna waxa kale oo ay sheegtay in kasta oo xooga gobolku ay qabteen tababaro haddana aanu mushaarka si joogto ah loo siin jirin hadda ciidanka dowladda waxa ay helaan mushaar ku filan in ciidamada maamul goboleedyada ay qayb ka noqdaan hanaanka qaran ee nabadgelyada wuxuu muhiim u noqon doonaa suuragelinta bixitaanka AMISOM ee la qorsheeyay khubaradu waxay haatan qiimeynayaan inay suuragal noqon karto bixitaanka AMISOM ee la filayo 2021 sida ku taal qoraalada ay gudida u soo bandhigtay dowladda federaalka ahi waxay dhameystirtay wejigii koobaad ee diiwaangelinta ciidanka dabayaaqadii Maaj 2019 taas oo ah tallaabo taagan oo xoogga nabadgelyada loo qaaday la taliyaha madaxweyne Farmaajo ee dhanka amniga Cabdisiciid Muuse Cali oo la hadlay BBC-da ayaa yiri sidaad ogtahay ciidamada waxaa loo diiwaan geliyay si casri ah akoonada waa la yaqaanaa qoriga ay sitaan waa calaamadeysan yahay waana la diiwaan geliyay yiri sidoo kale qaybta 6aad ee Baydhabo ayaa laga hadlay bishii Maaj sanadkii 2018 daawade taliya ku-xigeenka qaybta 6aad ee ciidanka qaranka Soomaaliyeed ee Baydhabo ayaa siiyay SAMJ diiwaangelin oo qaranka Soomaaliyeed qayb ka noqonaya ciidankaasi la sheegay in la siiyay kaarar ay ku sii sugaan inta laga dhameystirayo diiwaangelintooda tirada ciidamadaas waxaa lagu sheegay 277 askari oo qaybta 6aad ah waxaana loo qaybiyay hub 53 iyagoo kamid ah maadaama sida loo kala horeeyay diiwaangelinta loo siinayo qoryaha qaybta 12 Abriil ee Muqdisho ayaa laga hadlay 7 Agoosto 2018 waxaa SAMJ la siiyay muunayo laga qaaday qoraalada mushaarka la siiyay ciidamada xoogga dalka oo ku taariikhaysnaa 2017 oo ay ku jiraan magacyada iyo lambarada 348 askari oo ka tirsan qaybaha kala duwan ee ciidanka qaybta 12 Abriil ee fadhigoodu yahay Muqdisho oo ay ka mid yihiin Birjeex iyo Danab iyo guutada labaad ee ciidanka xoogga iyo afraadba ilaa iyo 60 kamid ah khubarada waxa ay garteen in 262 askari oo qiyaastii 3 meeloodoo laba wadarta guud ah oo magacyadooda iyo kaararkooda aqoonsigu ku jireen qoraalada lacag bixinta ay ku taariikhaysneed February 2019 lafagorku waxa uu sidoo kale iftiimiyay farqi weyn oo u dhaxeeya askarta diiwaan gelisay dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa qoran ee la doonayo in la diiwaan geliyo wadarta guud ee saraakiisha saajin iyo brigadier
oo ay ku jiraan kuwa ku qoran qoraalada 2017 waxaa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya u cadaatay beesha caalamka in ay guul ka gaartay in ciidamada ay diiwaan geliso kuwa diiwaan gashan ay si joogto ah bishooda u qaataan isla markaana askari kasta ay dowladda ku amartay meesha uu joogo inuusan ka dhaqaaqi karin ilaa iyo amar taliye mooye xerada General Gordon ayaa sidoo kale lagu soo qaatay warbixinta ay daabacday qaramada midoobay warqad ku taariikhaysan 17 May 2018 ayaa la taliyaha ciidamada Soomaaliya ku muujiyay 17 askari oo aan la diiwaan gelin oo kuwa tababar ku jira loo qoray iyo kuwa kale oo iyaguna la qorsheynayo waxaa la sheegay in ay xeradaasi kaalin weyn ka qaadato kobaca ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed deegaanada gobolka Shabeellada Hoose iyo guutada Danab sida ay ku qabsadeen ayaa la shaaciyay sida ay sheegtay dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay dejisay siyaasado loogu guuleysanayo al-shabaabka dalka dhan intiisa badan gacanta ku haya la taliyaha dhanka amniga ee madaxweyne Farmaajo wuxuu yiri siyaasaddu waxay tahay dowladaha na taageera waxay badankooda nagu taageersan yihiin la dagaalanka al-shabaab iyo inay rabaan in dowladda Soomaaliyeed ay noqoto dowlad gabi ahaanba dalka gacanta ku haysa laga bilaabo May ilaa iyo Agoosto sanadkan 2019 AMISOM iyo ciidanka Soomaaliya oo istaageeraya ciidamada gaarka ah ee Mareykankana gacan ka helaya waxay weerar ku qaadeen tuulooyin istiraatiiji ah oo ku yaala Shabeellada Hoose oo ay haysteen al-shabaab howlgallada nabadgelyo waxaa si buuxda loogu qabsaday tuulooyinka Bariire Sabiid Caanoole iyo Owdheegle oo dhammaantood 50 kiiloomitir u jira Muqdisho howlgalladaas waxay matalayeen horumar muuqda oo laga xaqiijinayo nabadgelyada Muqdisho maadaama meelaha la qabsaday ay ahaayeen meelo laga soo galo oo uu u soo maro gaadiidka al-shabaab oo ay u adeegsato qaraxyada laakiin hadda waa lagu guuleystay ay yiraahdeen wararka ayaa sidoo kale waxa ay sheegayaan in ay ciidanka Danab ay yihiin kuwo si gaar ah dowladda Turkiga ay u soo tababartay isla markaana intii ay howlgalladaasi ku jireen qasaarahooda uu yaraa isla markaana guulo ay gaareen ciidamada ahlus sunna ee lagu daray ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sidoo kale qaramada midoobay ay ku amaantay qaranka Soomaaliyeed toddobaadkii ugu dambeeyay bishii Juun ee sanadkan 2019 dowladda federaalku waxay shaacisay in koox weyn oo ka tirsan ahlus sunna wal jamaa suufiyada taageera shacabka isla markaana dagaal hore uga xoreeyay deegaanada al-shabaab in markaasi 1991 wixii ka dambeeyay markii ugu horeysay la arkay in ciidamadaasi la qarmeeyay isla markaana ay yihiin kuwa iminka ah ciidan ka tirsan qaranka Soomaaliyeed ahlus sunna wal jamaa in lagu daro ciidamada federaalka waxa ay qaramada midoobay ku tilmaamtay arin aan la dhaylsan karin isla markaana guul weyn oo Soomaaliya u soo hoyatay 16 February 2019 taliyaasha militariga ee AMISOM waxay isla meel dhigeen arrimaha howlgallada sida loo filinayo iyadoo la raacayo xeerarka qawaaniinta caalamiga ah isla markaana waxaa hadda qaramada midoobay ay sheegtay in ay ugu dambeyn guul weyn ka gaareen in ay ogaadaan in ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya ay ammaanka kala wareegi karaan AMISOM isla markaana hadda wixii ka dambeeya ay iyagu diiradda saari doonaan sidii AMISOM ay ugu sheegi lahaayeen in ciidanka Soomaaliyeed soo kabasho ay ku jiraan isla markaana ay u diyaar garoobaan 2021 inay dalka ka baxaan haddii aysan wax isbedel ah dhicin madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynihii hore ee Soomaaliya ayaa ka warbixiyay kulankii ay la yeesheen madaxweyne Farmaajo iyadoo maanta markii ugu horeysay ay kulan wada tashi ah isku soo hor fariisteen madaxweynayaashii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo madaxweynaha hadda talada haya ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxaa jira in ay ka wada hadleen arrimo kala duwan oo xasaasi ah oo ku saabsan doorashooyinka ammaanka sida laga yeelayo dadka ku nool magaalada Muqdisho oo culeysay wajahaya iyadoona madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu sheegay daawadayaal in qaranka Soomaaliyeed dadka uu ka wada dhaxeeyo loo baahan yahay in siyaasiyiinta aysan marnaba siyaasadeen xaaladda ammaanka oo uu sheegay in ay laga maarmaan tahay in loo daayo ciidamada ammaanka sidoo kale waxa uu sheegay inay dalbadeen in ciidamada ammaanka aan loo adeegsan siyaasadda oo ay banaanka ka joogaan
waxaa jirta in shirkaasi sidoo kale uu ahaa mid hordhaca, sidoo kalena waxay shaaciyeen in kulamo kale ay isaga imaan doonaan, islamarkaana arrimo kala duwan oo farsamo ahaana ay harsan yihiin. Wuxuu meesha ka saaray guud ahaanba wararka ku saabsan in dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo mucaaradka iminka uu u dhexeeyo khilaaf aad u xoogan, wuxuuna sheegay in hadda wixii ka dambeeya isaga uu doonayo in uu la shaqeeyo guud ahaanba dowladda federaalka Soomaaliya madaxdeeda, wuxuuna cadeeyay in uu doonayo in markaasi wixii hadda ka dambeeya uu diiradda saaro sidii ay hal meel uga soo wada jeesan lahaayeen dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab oo ummadda Soomaaliyeed dhibaato weyn ay ku qabaan. guud ahaan waa naga intaa daawadayaal warkii oo aad kala socoteen qaranka TV. fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe inoo saar, asxaabtaadana la wadaag wararka iyo barnaamijyada kala duwan sida joogtada ah aan kugu soo gudbino. qaranka TV waa saaxiibka dhabka ah ee ku soo gudbinaya dhacdooyinka xaqiiqda ah ee qarankaaga ka jira.